بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كيني هوري وحان كسو شرحناي سيدا الله مقعابو straight chain الكينيس كاله سلسلة توسن. ما انت عشر كيني وحان كبلاغينا naming مقعابستا branched chain alkanis sida loo magacaabo alkaniska markay leeyihiin branchiga hore aan soo sheegnay waa laan farac straight chain silsiladu markay dheer tahay kan oo kale waxaa la yiraahdaa waa branch. waaye example 1 tusaalaha koowaad waxaa lagu yiri name magacaabo the following structure qaab dhismeedka soo socda magacaabo. sida loo magacaabayo waxaan soo sheegnay inuu leeyahay rules xeerka ka ugu horeeya wuxuu sheegayay choose dooro the longest chain silsilada kuugu dheer dooro oo loola jeedo silsilada iska leh tirada kaarboonada ee ugu badan dooro. waaye tusaaleheenan imise siyaabood ayaan u dooran karnaa longest chain. waaye ugu horeyn aan sidaan u doorano straight imise kaarboonaan helaynaa aan xisaabino 1 2 3 4 waxaan soo helnay 4 kaarboon 4 carbons. sidaan haddaan u doorana maxaan helaynaa 1 2 3 carbon. sidaan haddaan u doorana maxaan helaynaa sidaan 1 2 3 4 isagana 4 carbon. annaga waxaana la yidhi dooro longest chain silsilada uu kaarboonada badan dooro kan saddexdaa horta meesha ka saar asaga ma shaqaynayo. labadan siyaabood midii aad qaadato waxay la mid tahay ta kale macnaha isku magac ayay keenayaan. labadaba aan u qaadano ugu horeyn sidaan aan u qaato boxaan gelinayaa box qaabkaan u dooranaa boxaan gelinayaa box ayaan gelinayaa. waayahay 1 2 3 4 tii ugu horeysa waa dooranay. xeerka labaad wuxuu ku dhahayay number the longest chain silsiladii aad dooratee dheereed haddana number isku dul qor adigoo ka bilaabaya dhinaca ugu dhow ee uu ku dhegan yahay alkyl groupka adigoo ka bilaabaya dhinaca ugu dhow ee uu ku dhegan yahay alkyl groupka. labada dhinac aan fiirina marka 1 2 3 haddaan xag ka bilaabo inta haddaan ka bilaabo alkyl groupka wuxuu ku dhegan yahay numberka 3aad. waayahay dhankan kale aan ka bilaabno 1 2 3 4 alkyl groupka wuxuu ku dhegan yahay numberka 2aad. labadan 3 iyo 2 yaa ah maaragtay lowest number yaa ah tirada yar yaa ah labadan
laba iyo saddex waxaa yar labo waxaan qaadanaynaa labo sababtoo axyaan waxaa jira dhahayay waa inuu noqdaa alkyl groupka meesha uu ku dhegan yahay lowest possible number tirada ugu yar ee macquulka ah saas daraaddeed saddex iyo labo lowest number waxaa ah labo marka sida saxda ah waa inaan inta ka bilaabo sababtoo alkyl groupka dhankaan uu dhow yahay caadi ahaan waxaa noogu xiga inaan magacaawno marka sidee u magacaabaynaa ugu horeyn alkyl groupka numberka uu ku dhegan yahay qor waa labo hyphen ama dash alkyl groupka magaciisa meesha ku dhegan alkyl groupka meesha ku dhegan magaciisa qor asagana waa methyl ugu dambeyn longest chainka imise carbon uu ka kooban yahay afar carbon maxaa loo yaqaanaa butane raaci butane marka isku akri marka magacii kuu soo baxay muxuu noqday 2 methyl butane waayahay qaabkii kale aan u doorano qaabkii kale ee sidaan ahaa aan u doorano maxaan helaynaa examplekii aan soo qorno waaya qaabkii kale aan u magacaawno waxaana laga rabaa inay keenaan isku magac okay aan box gelino waa kan alkyl groupka marka intuu ku dhegan yahay markaan 1 2 3 4 longest chainkeena waa aan nambarino numberka haggeen ka bilaabaynaa meesha ugu dhow ee uu ku dhegan yahay alkyl groupka 1 2 3 u noqonaa intaadaan ka soo tiriyo laakiin intaadaan ka tiriyo 1 2 waay marka kuwa lambarka lagu qorayana waa inay boxka gudihiisa ku jiraan ka wuxuu noqonaa 1 ka wuxuu noqonaa 2 ka wuxuu noqonaa 3 ka wuxuu noqonaa 4 labo maxaa ku dhegan marka tirada lagu dhegan yahay waa labo carbonka lagu dhegan yahay laba qor yaa ku dhegan CH3 maxaa loo yaqaanaa methylki qor 1 2 3 4 carbon maxaa loo yaqaanaa butane ardayow saa u jeedid labadii jawaabood waa isku mid 2 methyl butane marka sidaa loo doorashada laga dhigo 2 methyl butane markii laga dhigo qaabkaas loo doorto intaas waa examplekeenii hore example number 2 aan u gudbaynaa exampleka labaad examplekeenna labaad
example كلمات name the following structure مقعاو قاب اسميت كسو صعدة aan doorano longest chain sidaan haddaan u doorano imisa helayna 1 2 3 4 5 carbon sidaan haddii aan u doorano maxaan helaynaa 1 2 3 4 5 sidaan haddaan u doorano maxaan helaynaa 1 2 3 4 5 saddex siyaabood 5 5 sidaan haddaan u doorano maxaan helaynaa 3 sidaan haddaan u doorano maxaan helaynaa 3 marka saddexdii siyaabood middaa doonto u dooro waxay keenayaan isku jawaab okay tan baan doorano middaan dhexda ku jirta aan doorano box aan gelino tan akas box aan gelino 5 number the longest chain tiro ku maaragtay ku dul qor longest chainka aad dooratay silsiladii dheereed oo ugu kaarboonada badnayd oo aad dooratay tiro ku qor adigoo ka bilaabaya dhanka ugu dhow ama dhinaca ugu dhow ee uu ku dhegan yahay alkyl groupeska inta waxaa ku dhegan 2 alkyl group okay dhankaana ugu dhow dhankaa wuu kasoo dheer yahay 1 2 3 kan afraad intana 1 2 2 iyo 4 yaa yar 2 lowest number 2 ah marka afarta waa khalad waxaa correct ah 2 labada dhankeeda ka bilow okay 1 kan wuxuu ku noqonayaa 1 kan wuxuu noqonayaa 2 kan wuxuu noqonayaa 3 kan wuxuu noqonayaa 4 kan wuxuu noqonayaa 5 horey waxaan usoo aragnay xeerarka haddii one straight chain hal silsilad ama same structure ay ku dhagaan 2 alkyl group waxaa la isticmaalayaa ereyga die iyadoo la qoraayo numberka positionska ama locationka ay ku dhagan yihiin numberkiisa iyadoo la qoraayo hadda waxay ku dhagan yihiin numberka labaad numberka labaad waxaad qoraysaa 2 times waxaad leedahay 2 waxaad leedahay 2 2 dash u isticmaal maadaama laba ay yihiin ereyga die means 2 labo magaca alkyl groupeska ku dhagan waa methyl dimethyl silsilada ugu dheer how many carbon atoms ay ka kooban tahay 5 carbon atoms maxaa loo yaqaanaa pentane markaan isku aqrina nameka muxuu noo noqonaa 2 dimethyl pentane silsiladan magaceeda waa sidaas 2 dimethyl pentane okay waxaa noogu xigi doona exampleka 3 okay example number 3 tusaalaha 3aad name the following structure magacaab qaab dhismeedka soo socda qaabkaana lagugu qoray ardayda waxaa laga yaabaa qaabkan oo kaleeta haddii loo qoro inaysan fahmin marka qaabkan wuu iska sahlan yahay CH3gan wuxuu ku dhegan yahay CH kan meeshaan CH2 laga rabay hal hydrogen ka maqan macnaheedu wuxuu yahay
baranjiyaa ku dhegan meeshaan tag CH2 laga rabay laba hydrogen ka maqan meeshaan laba CH3 ku jirto kor iyo hoos ay uga dhegan yihiin kan marka qaabkaas aan u dhigno structure-kan wuxuu la mid yahay structure-kan aan dhigi doono CH3 waa kan CH hal CH3 ku dhegan ama hoos ama kor meeshaan rabto oga dheji kan C laba ku dhegan laba CH3 ku dhegan kor iyo hoos kabacdi CH3 kow labo saddex afar structure-keeni waa afartaas inta labadii ku dheganayd waa kuwan kana magacaabo lagu yiri sidee loo magacaabaa dooro longest chain kow labo saddex afar 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 qaabkaa doonta u dooro annaga waxaan qaadanaynaa midka straight-ka ah ka toosan kan aan qaadano box aan gelino kan maxaa noogu xiga marka waa dooranay longest chain 4 carbon atoms ay noqotay waxaa noogu xiga number the longest chain numbari adigoo ka bilaabaya dhanka ugu dhow ee uu ku dhegan yahay alkyl groupka waaya intaan ka bilaabno kow laba alkyl groupa ku dhegan intaadaan ka bilaabnona kow labo hal alkyl groupa ku dhegan markaan oo kaleeto maxaa la sameynaa intaadaa ka bilawda laba waaye intaadaa ka bilawdana laba waaye ardayow waxaad dooranaysaa dhanka uu ku dhegan yahay more substituents ama more alkyl groups dhanka ay ku dhegan yihiin haddii labada dhinac tirooyinkooda ay isku mid noqdaan dooro dhinaca uu ku dhegan yahay more alkyl groups marka dhankaana laga bilaabayo dhankaan lagama bilaabayo kow labo waay laakiin dhankaanaa badan inta laba alkyl groupa ku dhegan intana hal alkyl groupa ku dhegan marka dhinacaan ayaa ah kan correctig ah kan kow noqonaa kan labo saddex afar kow laba saddex afar okay aan qorno maxaa ku dhegan marka number 2 waxaa ku dhegan 2 alkyl groups ama kaarboonka labaad laba alkyl groupa ku dhegan laba meelooda looga dhegan yahay asaga numberkiisa waxaad qoraysaa laba jeer waxaad leedahay 2 kan saddexaad hal jeeraa lagu dhegan yahay lagu dhegan yahay numberkiisa hal maraa qoraysaa numberka ku dhegan waa 3 horey waxaan usoo baranay alkyl groupiska hadday noqdaan saddex isku mid ah waxaa la isticmaalayaa ereyga try ayaa loo isticmaalayaa marka waxaan leenahay dash ama hyphen try namekoodaan qoraynaa marka kan waa methyl kanna waa methyl marka try methyl kadib silsilada ugu dheer how many carbon atoms waay 4 carbon atoms waay afar maxaa loo yaqaanaa 4 carbon butane
هدي أنا سكوا أغرني معي نقطي 2,2,3 تراي ميثايل بيوتين 2,2,3 تراي ميثايل بيوتين عشر كأني ما أنت انتاس أيوم نوجو أجيهاي إن شاء الله لسعو عشرنا دنبي اتحناها هدي الله إذنه صاحبنا وشير جري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.